Ethiopia toddobaatan iyo labadii saacadood ee u dambeeyay waxaa ka taagan xaalad colaadeed oo aad u cakiran. Ciidanka militariga Ethiopia iyo xoogaga Faano ayaana la sheegay in ay jilibka isu aasteen. Faano waxa ay sheegatay inay qabatay xubno ka mid ah ciidanka militariga Ethiopia, halka warbaahinta Amxaaradan ay xusayso in ciidanka militariga Ethiopia ay adeegsanayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee drone iyo sidoo kale diyaaradaha dagaalka. Warbixinadu waxay sheegayaan in dagaalka hadda uu ku fiday inta badan dowlad deegaanka Amxaarada. Warbixintana sidoo kale waxaad ku maqli doontaan dowlad deegaanka Amxaarada oo ay soo wajahday cabsi weyn oo la xidhiidha in ay soo weerarayaan xoogaga TPLF. waxaana la sheegayaa in maamulkaasi uu bilaabay in uu xiriyo tababar ku aruuriyo dhalinyarada dowlad deegaankaasi. Tigreeguna waxaa la sheegayaa in ay soo ruqaansadeen iyagoo wata hub culus, waxaana shaki la gelinayaa in Tigreegu ay wareejiyeen hubkii saxda ahaa ee ay la wareegeen xilligii uu socday dagaalka waqooyiga. qaybta dambe ee barnaamijkeena waxaan idinku soo gudbin doonaa warar la xidhiidha hay'adda UN oo soo saartay in dowladda Ethiopia ay raaftay dad ka badan 300 oo qof oo Eritrean. sidoo kale warbixinteena waxaynu ku eegi doonaa xogo la xidhiidha in madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo ku kulmay magaalada Qaahira ee dalka Masar ay ka wada hadleen in Isaias Afwerki uu soo booqdo magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Ethiopia. arrintan ayaa imaanaysa xilli ay soo baxayeen warbixino la xidhiidha inuu jiro khilaaf hoose oo u dhaxeeya labada dowladood ee Ethiopia iyo Eritrea ayna isu hub urursan hayeen bilihii u dambeeyay. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan daawadayaal. soo dhawaada. aynu ku bilownay dowlad deegaanka Amxaarada waxaa ka taagan xaalad colaadeed tii abid ugu xumayd. qaybo badan oo deegaankaasna waxaa la sheegayaa in uu dagaalku ku fiday. Faano waxay xustay in ay gacanta ku dhigtay ciidan badan oo militariga Ethiopia, sidoo kalena diyaaradaha Ethiopia ayaa la sheegayaa in goobo deegaankaasi ka mid ay duqeeyeen. haddaba si aynu xog faahfaahsan ooga helno goobaha uu dagaalku ka dhacay, qaabka ay wax u socdaan iyo sidoo kale xogta dowlad deegaanka Amxaarada, waxaanu la xidhiidhnay saaxiibkay Santaag oo inta badan soo indhaynayay xaaladihii ugu dambeeyay dalka Ethiopia. Santaag soo dhawow, bal maxaa ugu dambeeyay dowlad deegaanka Amxaarada? aad baad maasan tahay faahiye ummadda Soomaaliyeedna waa salaamaynaa. dowladda Ethiopia waxa ay mar labaad cagta saartay wado ay sanado ka hor ku soo jirtay oo ah wadada Olca iyo Baaruuda. maalmihii ugu dambeeyay dagaalo xoogan oo u dhaxeeya jabhadda Faano oo kaashanaysa ciidamada New Booliska dowladda deegaanka Amxaarada ee ciidamadii la kala diray ee bilo ka hor dowladda federaalka ay ku dhawaaqday iyo ciidamada militariga ee dalka Ethiopia ayaa ka socday deegaanada ama magaalada Qobo iyo buuraha Zobil, halkaas oo ciidamada militariga iyo ciidamada deegaanka Amxaarada ee ama jabhadda Faano aan dhahnay iyo waliba ciidamada New Booliska oo isgarabsanaya ayaa halkaas ku dhaxmaraya, iyadoo waliba faahiyo la sheegayo in ciidamada Faano ama jabhadda Faano ee deegaanka Amxaaradu ay ka gacan sareeyaan ciidamada militariga oo ciidamada militariga jab weyn la gaarsiiyay kadibna lagu amray militariga inay kiciyaan diyaaradaha miiga ah ee qumaatiga u kaca, halkaasina lagu duqeeyay. iyadoo sidoo kaleeto maalmo ka hor 200 oo ka tirsan jabhadda Faano hal meel lagu dilay oo diyaaradahaasi ay duqeyntaasi ku dileen sida dowladda federaalka ay sheegtay. dagaaladaasi marka la fiiriyo qaabka ay ku socdaan waxaad moodaa inaan waxba la isku reebanaynin oo dowladda federaalka Ethiopia ay adeegsanayso awoodeedii ugu dambeysay, halka Faanana ay bilowday ama deegaanka Amxaaradu ay bilaabeen in dhalinyaradii iyo dhammaan laga qayb qaato oo dagaalkaasi uu yahay dagaal culus oo markaasi aan ahayn dagaal si qabow ku socda. hadda dagaalkaasi ka socday buuraha Zobil iyo Qobo waa la iskala tegay oo hadda waxaaba la isla galayba magaalada Waldiya oo ah magaalo istiraatiijiya aadna u weyn ayaa halkaas ayaa la isla galay. waxaana laga cabsi qabaa faahiyow in dagaalku uu sii fido oo magaalooyinka waaweyn ee deegaanka Amxaarada iyo saldhigyada waaweyn ee ciidamada militariga ay ku leeyihiin deegaanadaasi in dagaalku uu ku fido, iyadoo waliba la sheegayo dhowrkii beriye ugu dambeeyay dagaaladii dhacay in jabhadda Faano iyo ciidamada New Booliska iskarabsanaya in ay gacanta ku dhigeen saldhigyo waaweyn oo ciidamada militariga ee dalka Ethiopia ay ku lahaayeen gudaha deegaanka Amxaarada. si fiican. Santaagow, marka laga tago dagaalkan hadda ka socda magaalada Qobo iyo sidoo kale buurahan silsilada ee Zobil, lana sheegayo in magaalada Waldiya qaybo ka mid ah jugta laga maqlahayo. sidoo kale waxaa jira xogo ka soo baxaya dowlad deegaanka Amxaarada oo warbaahintu ay xusayso, taasoo ah in ciidankii ugu fara badnaa abid uu dowlad deegaanka Amxaarada dhinaca kale u furay tababar dhalinyaradii deegaankaasna lagu aruuriyay magaalooyin ka tirsan ee dhulkii laga qabsaday TPLF xilligii uu socday dagaalka waqooyiga. sidoo kale waxaa soo baxaysa xogo la xidhiidha in TPLF ay soo ruqaansatay. bal xaaladani
maxaa laga sheegahayaa faahiyow xiisad colaadeed ayaa ka taagan deegaanka ama magaalada jarjar iyo alamata oo ah deegaan run ahaantii curyaamiyey muran dhuleed oo markaasi udhexeeya deegaanka axmarada iyo deegaanka tigreega dhulkani horay waxaa u haysay 30kii sane lasoo dhaafay ama dhowr iyo 20kii sane lasoo dhaafay waxaa gacanta ku hayay TPLF ayaa gacanta ku haysay oo tigreeg ayaa maamulanahayay balse dagaaladii sokeeye ee u dhexeeyey TPLF iyo dowladda dhexe oo markaasi garab ka helaysa deegaanka axmarada ayaa dib ula wareegay waxaana sanadihii lasoo dhaafay ama sanadkii lasoo dhaafay baa gacanta ku hayay oo maamulahayay deegaanka axmarada axmaradu waxa ay ku dhawaaqeen maamulka axmaradu in ay dhalinyaradu ay diyaar garoobaan oo dhulkooda ay difaacdaan waxaana xeryo waaweyn oo dhalinyaradaasi lagu tababarayo laga furay deegaanka alamata iyo deegaanka jarjar oo markaasi la doonahayo in TPLF oo soo ruqaansatay iyada naftirkeeda ciidamo aad u tiro badan soo dhoobtay deegaanadaasi in looga hortago waxaana laga cabsi qabaa in TPLF iyo deegaanka axmaradu mar labaad ay gacanta isa saaraan oo ay iska hortagaan sidoo kaleeto faahiyow sidaad wadaogsoon tahayba 3dii sane lasoo dhaafay dowladda dhexe waxa ay la safnayd oo la jirtay deegaanka axmarada oo garab iyo gaashaanba ay isku ahaayeen hadda waxaa moodaa inay kala furteen oo dowladda dhexe markaasi iyadoo ay taageerayso TPLF oo dib usoo noolanayso TPLFna waxaa ka go-an in deegaanadii ay horey isku haysteen deegaanka axmarada ee muranku ka taagnaa labadii gobol in dib ay loo wareegaan deegaanka axmaraduna diyaar waxay u galayaan in ay iska difaacaan xogaga TPLF iyo kuwa militariga isgarabsanaya santagow halka haddaan kaa dhex galo warbaahinta amxaarada ama warbaahinta afka xabashiga ku hadasha Ethiopia waxay xusaysaa in TPLF oo horay u sheegtay in laga wareejiyay hubkii cuslaa ee ay furatay xilligii dagaalkii waqooyiga ama gacanta u galay in wararkaasi aysan waxba ka jirin TPLFna hadda ay la soo baxday hub casri ah oo aad u fara badan ayna ku soo wajahan yihiin magaalooyinkan jarjar iyo alamata bal arrintaasi maxaa xoogad ka haysaa faahiyow ummadda Soomaaliyeed haddaan u bayaamino waxa laga yaabaa dad badan baa mugdi kaga jiray arrintaasi TPLF horta waxba oo ay wareejisay ma jiro markii laga reebo hubka waaweyn ee artilleriga oo qaybo kamid ah guutooyinkii ugu cuslaa markaasi ay wareejiyeen hubkii ugu badnaa waxaa loo jeheeyay dhinaca deegaanka axmarada iyo gobolka Walqayt ama xuduudda Eritrea iyo deegaanka Tigreega ayaa loo jeheeyay TPLF heshiiskii lala galay ee hore ee hub wareejinta waxaa ka soo kamaray xiisado kaleeto oo gudaha Itoobiya iyo waliba banaanka ama wadamada dariskaaba ka soo cusboonaaday TPLFna hadda waxaad moodaa in lagu wareejiyay hogaanka dagaalka lala galahayo wadamada dariska ee markaasi muranka deegaanka axmarada marka TPLF hadda hubka la sheegayay deegaanka axmaradu ay ka cabanayaan waa hubaal in TPLF weli ay haysato hubkii ugu cuslaa ay haysato waana hubkan hadda maanta lasoo dhoobay deegaanka jarjar iyo alamata ee usoo ruqaansaday laga cabsi qabo halka inuu dagaal ka dhaco waana dogeydo maalmihii ugu dambeeyay faahiyow Eritrea naftirkeeda waxay ka qabtay xoogaa walaac weyn bay ka muujisay hubka aadka u waaweyn iyo gacanta TPLF ku jira iyo waliba dagaaladan soo cusboonaan kara bay dhaheen waa kii siyaasi of warkii diyaaradaha dagaalka kiciyay ciidamadiisa uu ku amray in ay dhulkooda difaacdaan marka si kastaba ha noqotee TPLF hubkeedii way haysataan laakiin majaraha dagaalka ayaa lagu wareejiyay maadaama Abiy Ahmed 2 sano oo kaamil ah oo dagaal ku jiray oo TPLF kula jiray guul weyn uusan ka keenin oo jabkii ugu weynaa uu ka keenay dhinaca dhaqaalaha markii la eego iyo dhinaca infantryga markii la eegaba uu ku soo jabay wuxuu ogaaday garwaaqsaday in TPLF ay qaban karto furaha dagaalka cid walba markaasi kibir keenta gudaha wadanka Itoobiya iyo in loo adeegsan karo aad baad u mahadsan tahay santagow daawadayaal haddaan intaasi wax yar idinku daro waxaad ogeydeen in maalmihii u dambeeyay xoogaga amxaaradu ay geysanayeen weeraro iyo sidoo kale shirqoollo ka dhan ah xubnaha xisbiga barwaaqo ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu gudoomiyaha u yahay oo la xasuusto inay ku laayeen magaalooyinka Shawarobid magaalada Sajen ee gobolka Goojam iyo sidoo kale magaalada Waldiya sidoo kalena waxaynu warbixinadeennii hore ku faafinay in dowladda Ethiopia ay hadda ku jirto diyaar garow aad u xooggan sidoo kalena ay jireen baabuur fara badan oo la sheegay inay ka gudbeen dowlad deegaanka amxaarada iyo Tigreega sidoo kale xoogagan Tigreega waxaynu hore idinku soo gudbinay in hogaaminta TPLF oo ay hogaaminayaan Debretsion Gebremichael madaxweynaha dowlad deegaanka Tigreega iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dowlad deegaanka Tigreega Gebrawaaxid ay ku kulmeen mid ka mid ah magaalooyinka gobolka Tigreega ayna sameynayeen hub aruursi iyo sidoo kale dib u xarayn ciidamadii TDF la dhigi jiray xilligii uu socday dagaalka waqooyiga intaasi markaynu kaga tagno
xaaladda amxaarada iyo tigreega warar kale oo ka soo baxaya Ethiopia ayaa sheegaya in hay-adaha qaramada midoobay ay xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ku eedeeyeen in dad ka badan 300 oo qof oo Eritrean laga raafay gudaha Ethiopia kuwaas oo lagu daadiyay xuduudda Ethiopia ay la wadaagtay Eritrea waxaana la sheegayaa dadkaasi in ay gacanta u galeen ciidamada Eritrea iyagoo ugu dambeyn loo diray deegaanadooda ama guryahooda hay'adda ayaa sheegtay in dadkaasi ay ka soo qaxeen maamulka macangaga ah ee Siyaas Afwerki hadda in lagu celiyo gobolka Tigreegana ay tahay mid khalad oo ay samaysay xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed lama oga ilaa hadda in Abiy Ahmed iyo Siyaas Afwerki arrimahaasi ay ka midaysan yihiin iyo sidoo kale in Abiy Ahmed uu go'aan ka qaatay ama looga shakiyay arrimo sirdoon sidoo kale dawladda Ethiopia kama aysan hadal dadkaasi dib loo celiyay dawladda Eritrea wax war saxaafadeed kama aysan soo saarin inkasta oo hay'adda dib u celinta qaxootiyada ee Ethiopia ay diiday in ay ka jawaabto su'aalo ay warbaahinta ka weydiiyeen arrintaasi marka intaasi laga yimaadana waxaad ogeydeen maalmihii u dambeeyay in Qaahira uu ka socday shir u dhaxeeya madaxda Afrika ee dariska la waddanka Suudaan oo ay u gogol xaadhaysay dawladda Masar shirkaasi waxaa ku kulmay ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Eritrea Siyaas Afwerki warbaahinta dawladda Eritrea ayaa warkaasi qaada dhigaysay xilli dawladda Ethiopia ay ka aamustay haddaba hadda waxaa soo baxay xogo la xiriira in isbuucyada inagu soo aadan uu madaxweynaha dalka Eritrea Siyaas Afwerki soo booqan doono magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia inkastoo arrintaasi aan la xaqiijin karin haddana warbaahinta qaybo ka mid ah ayaa xusaya booqashada Siyaas Afwerki ee magaalada Addis Ababa Abiy Ahmed iyo Siyaas Afwerki waxaa la xasuustaa inay u dhaxaysay xaalad colaadeed oo aad u culus muddooyinka ugu dambeeyay dhinaca kalena ay soo burursanayeen iyadoo Siyaas Afwerki lagu eedeynayo inuu taageerayo xoogga amxaarada halka Abiy Ahmedna uu garab iyo gaashaanba biday xoogga TPLF ama Tigreega isku soo duuduuba xaaladda Ethiopia ayaa ah mid hadda murugsan waxaana moodaa dagaalkan cusub ee isu dhil qaateen ciidanka militariga Ethiopia iyo xoogga Faano oo kaashanaya ciidanka liyu booliska dawlad deegaanka amxaarada in uu yahay mid dhibaato weyn u horseedi doona dalkaas waxaana la sheegayaa in magaalooyinkan Qobo iyo Waldiya ay ka barakaceen kumanaan shacaba halka la sheegay in buuraha Zobilna ay duqeynayaan diyaaradaha cirka ee ciidamada militariga Ethiopia isku soo duuduuba xaaladda Ethiopia iyo wixii ka soo kordho warbixinadeena dambe ayaad kula socon doontaan daawadayaal intaan ku kulmi doona barnaamij kala mid ah waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo